بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal kusoo dhawaada barnaamijkii aan ugu magac darnay su'aal weyn. barnaamijka su'aal weyn waxaanu ku qaadaa dhignaa ama aynu kaga doodanaa su'aal hadee jaraale adag ama su'aal noqon karaysa shubahaad iyo ismoodsiin oo u baahan in ay dadku helaan macluumaad dheeraada iyo tafaasiir. su-aasha maanta aynu soo qaadanayna waxay tahay su'aal shubaha ah ama ismoodsiin oo lagu soo dhex tuuro dadka muslimiinta dhexdooda, dadka loo yaqaano mustashriqiinta ay ayaguna markaa boonbooniyaan ayna ku dhex faafiyaan mujtamacaadka muslimiinta ah iyo mujtamacaadka laftigooda aan islaamka ahayn oo lagu diraaseeyo jaamacaadka waaweyn ee ay leeyihiin wadamada reer galbeed. su-aashaasi waxay tahay walaalayaal, qur-aanka kariimka ahi miyuu iska hor imanaya? gaar ahaan aynu soo qaadana markaa meel ay mustashriqiintu u soo qaataan tusaale. mustashriqiintu waxay yihiin waan idin sharaxi doonaa. waxay dhaheen su-aasha dhahaysa qur-aanku wuxuu leeyahay meel ka mida wuxuu leeyahay dhulka iyo cirka wuxuu alla ku abuuray 6 maalmood, meel kalena wuxuu ku leeyahay dhulka iyo cirka waxaa lagu abuuray 8 maalmood. sidaa aawadeed dhulka iyo cirka haddii lagu abuuray 6 maalmood uu aayad ka mid ay sidaa tilmaantay, aayad kaloo qur-aanka ka midna ay tilmaamtay in dhulka iyo cirka lagu abuuray 8 maalmood, marka waa tanaaqud, waa contradiction, wuu iska hor imanaya. mar haddii shay uu iska hor yimaadana hadal ilaahay ma noqdo ee waa hadal bani aadam. waxayna ku tuhmeen inuu qur-aanka uu alifay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. su-aashaasi waxa weeye waa su-aal ay mustashriqiintu kusoo dhex turaan mujtamacaadka islaamka iyo sidoo kale dadka aan islaamka ahayn iyaga laftigoodana lagu baro jaamicaadka si shubahooyinkaas iyo ismoodsiinta ay uga faa'iidaystaan oo ay ku lumiyaan ama ay ku baadiyaysiyaan dadyowga markaa muslimiinta ah. mustashriqiintu waayo? mustashriqiintu walaaliyaal waxa weeye waa dadka wax ka barta cilmiga bariga, reer bariga. subxaan allah, waxaynu maqalnay reer galbeedka ama westernk waayo, waa reer yurubta iyo maraykanka wey ayaa loo yaqaanaa, ama si guud haddaynu tilmaamno waa kristanka wey ama masiixiyiinta dadka isugu magacaabay baa loo yaqaanaa western. reer bariga, reer galbeedka waxay u yaqaanaan reer bari, waxay u yaqaanaan waxa weeye wixii muslim ah ama culumta reer bariga ayuu wax ka bartay. waxaa looga jeedaa yacni islaamka ayuu wax ka bartay ama cilmiga iyo xadaaradii carbeed iyo dadka reer bariga oo ay u yaqaanaan inta badan dadka muslimka loo yaqaano ayuu qofkaasi wax ka bartay. marka mustashriqu waxa weeye waa qof wax ka baranaya islaamka ka baranaya, laakiin islaamka uma baranayo in uu wax ka faa'iido ama qur-aanka uu barto ama axaadiista saxiixa uu barto, ee wuxuu bartaa axaadiis daciifa iyo axaadiis wadciya, yacni xadiis tamar yar oo aan caafimaadba qabin, subxaan allah, iyo xadiis lagaga been abuurtay nebiga ayuu bartaa. wuxuuna raadinayaa intaas qofkaasi goldoloolooyin iyo nuqaadu dacfi ayuu ka raadinayaa islaamka si uu ugu duro oo uu ugu soo duulo ayuu markaa u baranayaa cilmigan. markaa way yimaadaan wadamada islaamka yimaadaan, inta badan waxay tagaan dalka masar bay tagaan, wadanka turkiga yimaadaan, wadamada suuriya oo kale intaan dagaalku ka dhicin way tegi jireen, ciraaq way tegi jireen, iminka wadamada khaliijka way tagaan, imaaraadka, gadar, baxrayn, kuwait, aagaas oo dhan way yimaadaan, jaamacaadkay galaan. hadafkoodu waa maxay? waxay hadafkoodu uu yahay inay islaamka bartaan. qaabkay u baranayaanna qaabkii saxiixa ahaa ee sugnaan maaha, ee waxay baranayaan axaadiista wadciga ah, beenta ah, kuwa lagaga been abuurtay nebiga way soo qaadanayaan, kitaab buu ka samaynaya ama kitaab buu ka alifayaa, wuxuu la imanayaa wadamadii reer galbeedka iyo jaamacaadkii reer galbeedka, dabadeedna warkaa beenta ah buu ka faafinayaa, islaamka iyo muslimiinta uu ka faafinaya. dabadeedna waxa wax baranaya ardaydii reer galbeedka u dhalatoo dhan waxay baranayaan, markay u baahdaan inay bartaan islaamka waxay ka baranayaan jaamicaadka reer galbeedka. cidda aasaastay ee markaa cilmigan
laga soo xigtana waayo maaha islaam lagama soo xigan waxa laga soo xigtay nin markii horeba raadinayay goldololooyin iyo meelo uu ka duro islaamka iyo muslimiinta ayuu ahaa shakhsigaas ayaa markaa kutubta qoray professor waaweyn iyo rag falsafadayaal oo filosofiya bay leeyihiin oo yani waxa ku takhasusay laakiin hayhaata baynu leenahay kala foga islaamka subxaanallah waxa weeye waa diinta xaqa ah weeye meel ay goldoloolo keliyo ay helayaanna ma jirto dhammaanteed jawaabteedana insha allahu tacaala su-aalaha ugu badan barnaamijkeenan aan kaga jawaabina marka mustashriqiintaasi su-aalaha ugu badan ee ay dadka ku baadiyeysiyaan waxaa ka mid a inay dhaheen qur-aanku wuxuu ku leeyahay aayad ka mid a in aanu iska hor imanaynin haddii uu iska hor yimaadana hadal ilaahay maaha waana sax taasi oo ilaahay baa qur-aanka ku sheegay wuxuu alla leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana miyayna ku tadabburaynin oo fiirfiirinaynin qur-aanka walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan katiira haddii qur'aankani uu ka ahaaday cid aan ilaahay agtiisa ahayn yacni cid aan ilaahay ahayn agtiisa haddii uu ka yimi qur'aankani lawajaduu fiihi ikhtilaafan katiira waxay ka dhex heli lahaayeen qur-aanka qaladaad badan iyo iska hor imaad badan contradiction tanaaqudaat waxyaala iska hor imanaya aayadan hore ay ka hor imanayso oo markaa yacni aan caqliga geli karaynin ayuu markaa subxaan allah qur-aanku ka koobnaan laha sidaa aawadeed ilaahay taxadi buu ku sameeyey bashariyadda oo dhan wuxuu yidhi qur-aankaygu wakaa hadalka ilaahay weeye hadalka ilaahayna lama mid aha hadalka bani aadamka hadalkiisu iska hor imanaya laakiin hadalka alle iskama hor imanayo haddaad doonaysaan in aad ogaataan inuu qur-aankani hadal ilaahay yahayna baadha oo akhriya oo fiirfiiriya oo ku tadabbura oo balcar ka soo saara haddaad xiniye leedihidiin laba aayadood iska hor imanaya marka waxay dhaheen iyagu carintii aad nacariseen iyo challenge-gii iyo taxadigii aad nacariseen waanu ka soo baxnay waxaananu ka helnay iska horimaad baan ka helnay taasina waxay daliil u tahay ayay sheegteen inaanu qur-aanku hadal ilaah ahayn ee uu yahay hadal bani aadam ama nebi maxamed uu alifay waa saasay ku doodayaan ama doodoodu ay tahay waayo haddaba maxay ka soo heleen waxay ka soo heleen iyagu siday sheegteen waa war ku tidhi kuteena weeye war aan saxiix ahayn weeye waxay sheegteen qur-aanku meel aayad wuxuu ku leeyahay khalaqa asamaawaati waalarda fi 6 ayaam dhulka iyo cirkaba alla wuxuu ku abuuray 6 ayaam 6 maalmood aayad kalena wuxuu ku leeyahay wuxuu alla ku abuuray dhulka iyo cirka 8 maalmood ayuu ku abuuray dabcan mid baa sax ta saxda waxa weeye ilaahay dhulka iyo cirka wuxuu ku abuuray 6 maalmood taas waa sax qur-aankana way ku taallaa laakiin tan dhahaysa qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay 8 maalmood buu ku abuuray waa been meelnaba kagama taallo qur-aanka kariimka waa shubahooyinkay boonbooniyaan iyo beentay sheegaan waa kaa qur-aanka kariimka 6236 aayadood ayuu ka kooban yahay meel ay totally kaga taallo 8 maalmood buu alla ku abuuray dhulka iyo cirka maba jirtaba qur-aanka kuma taallaba subxaan allah oo haddaa xagee ka keeneen sabab meeshay ka keeneen waxa weeye waan idin sheegi doonaa dadkani may akhriyeen qur-aanka laakiin wararku tidhi kuteena ayaa mid mustashriq ah oo axaadiis daciif iyo meelaha wax kasoo xigxiganaya ayay ka maqleen sidaa awadeed markaad la doodid dadka aan islaamka ahayn waxay dhahayaan qur-aanku wuxuu ka kooban yahay 6 maalmood buu meelna leeyahay maalna 8 maalmood markaa iska hor imanaya khalaas hadal ilaahay ma wuxuu ku qancinayaa dadka gaalada maanta haddaba gaalada ayaynu markaa subxaan allah xaqii ha dul yimaado hana ku dul caddaado waayahay xagee ka keeneen haddaba walaaliy su-aashu waxay isweydiin haddii aanay aayad qur-aani dhahaynin dhulka iyo cirka ilaahay wuxuu ku abuuray 8 maalmood xaggay ka keeneen subxaan allah intooda badan war uma hayso qur-aanka waxay moodeen in aayaddaasi qur-aanka ku taallo laakiin kuma taallo qur-aanka no way meelnaba kagama taallo subxaan allah meesha ay ka keeneen iyagu may fahansanaan meesha ay ka keeneen ee ay dhaheen waan ka soo dhiraandhirinay waa aayado ku soo arooray suuratu fussilat weeye aayado ku soo arooray suuratu fussilat suuradda 14aad ee qur-aanka kariimka aayadda 9aad 10aad 12aad 12aad ilaa 13aad weeye aayadahaas waxay ka waramayaan ilaahay sidii uu dhulka iyo cirka uu abuuray ayuu tafaasiir dheer iyo macluumaad dheer uu ka bixinaya waaye haddaba aayaddaasi ma dhahayso 8 maalmood baa alla uu ku abuuray dhulka ma dhahayso meelnaba kagama taalo 8 ayaam iyo alla dhulka ku abuuray cirka meelnaba kagama taalo laakiin xisaabta ayay isu geeyeen xisaabtaanay si fiican u aqoonin dabadeedna waxay dhaheen xisaabta halkaa ku taalla
ayaa markaa inoo tilmaamaysa in 8 maalmood lagu abuuray dhulka. marka hore aan aayadaha halkan samurada inagu qoran baan akhrinaynaa, kadibna waan macnaynaynaa. meesha markaa ay kasoo dhiraandhiriyeen ee ay shubahaadka kasoo saareenna waynu idin tusi doonaa, kadibna jawaabtoodii ayay helayaan. aayaadku waxa weeye waa aayadda 9aad ee suuratu Fussilat. iyo Alle subxaana wa tacaala si cad uu uga hadlayaa, isagoo uu doonaya rabbi subxaana wa tacaala inuu caddeeyo dhulka iyo cirka qaabkii uu abuuray. wuxuu Alle yidhi qul innakum latakfuruuna billadii khalaqa al-arda. qul waxaad dhahdaa nebigi ilaahayow أئنكم إذنكم قال يوي قال هذا لا هذا أئنكم إذنكم لا تكفرون ما واحد كقالوا بيسان بالذي كي أما اللي هي بتكقالوا بيسان خلق كو أبوري الأرض دولك كو أبوري دولك وكيد وكان كو تشرنو يعني أي كدول سجنا هوي ألف يلام بالله صعد معرفة وكيل إسلام قرني ودول كموي خلق وحلا كو أبوري الأرض دولك وحكو أبوري في يومين لبا معلومات أيو كابوري لبا معلومات أيو الله كابوري دولك لبا معلومات محيي ويومين من أيام الله ومعلومات كميدا معلمها إلهي ما هم معلمها بني آدم كدولك أي حسابتنا مما تعدون الله مركو كور رمي حسابته بني آدم كدولك أي دتكو حسابتمان wuxuu ku daraa mimma ta'udun waxaad idinku tirsataan ma aad idinku xisaabtataan buu dhahaa laakiin marka ilaahay subhanahu wa ta'ala muu dhihin yawmayni mimma ta'udun laba maalmood kuwa tirsataan 24 saacadood maalintu ay tahay maya waa yawmayni waa laba maalmood oo kamida maalmaha ilaahay oo laba waqti oo dhaadheer ma ilaahayna waqtigu intii wala doona buu ka dhigi karaa ilaahay agtiisa malaayiin sanadood weeye hadii la doono malaayiin sano marka ilaahay dhulka iyo cirka wuxuu ku abuuray 6 maalmood 6 maalmood ma aha 24 saacadood maalinta ah ee bani aadamka dhulkan degani ay imika xisaabtanaan ee waa maalmo ilaahay agtiisa ah oo ka badan 24 saacadood ayna inagu naqaano oo malaayiin sanadood noqon karaysa way sidoo kale walaalayaal waxa baraarujin waxa mudan in 6 maalmood ee lagu abuuray dhulka iyo cirka in lagu sheegay kutubta yahuudda iyo kristanka labadaba waa lagu sheegay خاصة بايبل كي يهودية كريستان كا أيا لغو شاقين لح معلومات لغو أبوري دول كي يعرك كتاب كوغو ريب بايبل إلو يقانا Genesis بالايدا دا سومالي دي مركي ترجنتين سومالي دي مقرنسة قالوا دي كريستان كا نغوتي مركي ترجمين وحاو بحيان كتاب كا مقع عيسى بلاوغي محاو بحيان بلاوغي أوكي بلاوغي حتى كتاب كا لو بحي Genesis لدو عطوب كا كواد فقرد كواد إلا فقرة 9 يعني كتاب كود مركو بلامة فقرة كواد وكبلامة إلا 9 أي الوعد مركا مالمه سيد دولك الله أبوري مركا وحو تلمامي 6 مالمود لغو أبوري وحيلي مالنتي سبتي دا هيدا مالنتي حتى مالنتي سنين تجلم كودي هوري إلى هيك كان وحو أبوري ديرتا مالنتي كلا وحو أبوري سيدان وحيالها سؤال أبوري مالنتي كلا كان وأبوري بروها بدو أبوري قلن هوري يقلن دنبه أي شيء قلن هوري يقلن دنبه سبحان الله مر هدي قلن هوري يقلن دنبه أي شيء يهودي كريستان كويس ده أي شيء waxay uga jeedaan waa 24 saacadood inagu naqan laano gelin horiye gelin dambe waxa yeesha dhulkeena un bayeesh subhanallah iyo qorraxda soo baxda ee dhacda ayaa midna gelin hore ka dhigta midna gelin dambe ka dhigta sida awadeed yahuudda iyo kristaanku 6 maalmood ee ay rumaysan yihiin ee kutubtooda ku qoran waxa weeye waa 6 maalmood oo la mid ah 6 maalmood ee inagu aynu naqaano ee toddobaadka sabti ahad isniin salaasa arbaca khamiis kuwa ah weey ee 24 saacadood sida awadeed walaaliyaal uu ka duwan ila quraanka iyo islaamku waxay qabaan 6 maalmood ee walla uu ku abuuray subhanahu wa ta'ala ma aha 24 saacadood ee inagu naqaano ee waa maalmo u gaaray ilaahay subhanahu wa ta'ala sida ma kristaanka bedelay iyagu ee gelin horiye gelin dambe ka dhigtay way fi yawmayn alla wuxuu ku abuuray 2 maalmood baa alla ku abuuray kamida maalmaha ilaahay ayuu alla ku abuuray dhulkii وتجعلون له أندادا ما واحد يليسان الله مركا لبدا مالموت كو أبوري دولك كو أبوري أيادو يليسان أندادا ليجيسي أما ليج أدو يليسان ليج وايو وعدو كو ديغان تدي يعني إله عدو ديغان تميجتا ما يحاشا لله لكن قالوا عدو ديغان إله ويلن والعياذ بالله عدو ديغان تايا الله ويلن وصام يا إلهي بينا وأندادا إله عدو ديغان والعياذ بالله أيادو يليسان ذلك رب العالمين ربي دولك كو ابوري سيدا لبدا مالمود كو ابوري وربي برباريي عالمين وايو
وكل شيء سوى الله ووحول بإلهي مركا لغريبو عالم أوردن عالم كوحوي عالم كبني آدمك عالم كجنك عالم كحيواناتك عالم كديرك عالم كملائكة عالم كحشراتك عيانك وعالم يكل الدول وحاسو عالم أوردن عالمين لغوصو شمعنا يوردن وحا ربي وهو برباري إلهي سبحانه وتعالى وجعل فيها لوحو كيالي dhexdiisii wuxuu ku abuuray oo uu ka yeelay rawaasiya buurihi musaawi taagi buurihi rawaasiya waa buurihi min fawqiha dhulka dushoodii ayuu alle ka taagay buurihi wa baraka fiha wuxuuna alle barakeeyay dhulka dhexdeedana waa barakeeyay oo wuxuu ku barakeeyay arsaaqadii iyo quudkii iyo cuntadii la cabayay iyo biyihii la cabayay ayuu alle dhulka keenay subhanallah marka waa barakeysan yahay dhulkan وقدر فيها أقواتها وقدر وحو ألا قدري فيها دولك دحديسا وحو كو قدري أقواتها قوت كيدي معنى محل وجه كده وحو كو قدري الله سبحانه وتعالى دولك نفعيسي يدفتي دولك كو جرتي أيو قيبيي ودن كستا يتولى كستا يدل كستا وحوال لكسي دلنا لما قادنين مثلا صومالي إلهي وحو كو من نيستي أو قلديسا كميدين وسيي حول النور waxay ka mid tahay Soomaalidu dalka adduunka ugu xoolaha badan ee adduunka oo dhan iyo caalamka Ilaahay waa abuurto dhan ayay ka mid tahay subhanallah xoolo alla siiyay subhanahu wa ta'ala sidoo kale wadama kale alla wuxuu siiyay kalluun wadama kale alla wuxuu siiyay petrol wadama kale alla wuxuu siiyay diamond wadama kale alla wuxuu siiyay dhir badan wadama kale alla wuxuu siiyay beero wadama kale wuxuu alla siiyay webiyaal wadama kale alla wuxuu siiyay macdano marka waa la qaybiyo wadan kaliya bum lagagama sinin wax walba haystaa ma jirto wadan qatan oo sidiisa u soo taagana ma jiro ee waqadara fiha aqwataha alla waa u qadaray quudkeedii dhulka waa u kala qadaray qaybtan halkan si qaybtan intan si goorma imise ku qaadatay marka samayntii dhulka iyo qadaridii la qadarayay iyo barakadii dhulka la barakeynayay iyo gogoshii dhulka la saarayay waxa soo dhan waxa isku qaadatay fi 4 ayyam afar maalmood في 4 أيام أفر مالمود مالمها إلهية أي قادت سواء للسائلين وحوص من يعني عدي وح سؤال يسو جواب تدي واتن لما مالمود بالا دولك كو أبوري واي لبدا مالمود دولك والا كو أبوري وأبوري دي دولك يسامين دي دولك وي لما مالمود كلنا وحي كو قادتو مالمها إلهية وحي كو قادتي إنو ألا بوريه أتاغو dhulkii uu gogosha dhulka dusha laga saaro iyo roogii dusha laga saaro iyo barakadii dhulka la sameeyo iyo biyihii iyo sidoo kale quudkii noolaha ku noolaanayay ay quudsanayeen iyo arsaaqadii laba maalmood bay qaadatay isu geyn waa 4 ayyam afar maalmood haddaba ileen waa nimankii aan ka sheekeynna ma fakariyeen xisaabna ma yaqaanaan subhanallah waxay dhaheen labada maalmood ee hore iyo 4daas afarta isu geey waa 4 waa 6 iyo laba dambe oo cirka lagu abuuray waa 8 halkaas ay markaa dhaheen subhanallah 8 maalmood baa lagu abuuray meesha markaa xisaabtani fahansanin ilaahay wuxuu tafaasiir buu bixiyay wuxuu labadii maalmood ee hore dhulka abuuridiisa ayaan ku abuuray afartan dambena waa labadii hore iyo laba dambe marka la isu geeyay afar noqonaysa xisaabta dad garanaysid addition iyo isu geynta macnaheedu waxa weeye labadii hore ee dhulka lagu abuuray iyo laba kale dhulka habayntii dhulka wala uu ku abuurayay oo ku farsameeyay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa waxay qaadatay laba maalmood oo kale oo maalmaha Ilaahay ah ayay qaadatay markay isu geyn waa afar maalmood tusaalan ku sinaya saad u fahanti tusaale ayaan ku sinaya saad u fahanti مثلا waxaan ku uri magaalada Makka ayaan kaymi ama waxaan kaymi magaalada Jidda ayaan kaymi waxaan tagay magaalada Makka tagay waxay igu qaadatay laba maalmood ayay igu qaadatay Jidda inaan ka tago oo aan Madiina aadana waxay igu qaadatay afar maalmood ayay igu qaadatay waxaan uga jeedaa waxaan ku uri Jidda iyo Makka markii waxay igu qaadatayna intaan ku gaadhay laba maalmood bay igu qaadatay Jidda iyo Madiinana waxay igu qaadatay afar maalmood waa maxay macnuhu waxa weeye labadii maalmood ee Makka ku tagay iyo laba maalmood oo kale ay igu qaadatay Makka to Madiina ayaa afar isku noqonaya fasiraad baan ku siiyay waxaan ku uri laba maalmood waxaan kay tagay Jidda iyo Makka ayaan ku socday ayaan ku gaadhay haddana Jidda ilaa Madiinana afar maalmood ku gaadhay markaa de Madiina iyo Jidda dhexdeeda markii ku dhacda marka waxa weeye laba maalmood
oo markaa Jidda ilaa Maka ah iyo 2 maalmood oo kale Makiya ilaa Madiina ah 4 maalmood ayaan ku kala qaaday quraankuna waa sida 2 maalmood oo abuurkii hore ah iyo 2 maalmood oo iyaguna isku ah habayntii dhulka ah iyo roogiisi iyo markaa in dixyada waa maxay dhulka in laga dhigay ukun iyo kubad ilaahay wuxuu ku sheegay quraanka subhanahu wa ta'ala wal arda ba'da dhalika dahaha dhulkana inta kadib wuxuu alla ka dhigay mid u eg shay mid ukun u eg sida goobaaba ah dahaha uu daxiyay waa maxay macna sida kubadda mid u eg oo goobaaba ah oo ukun u eg ayuu alla ka abuuray subhanahu wa ta'ala dhulka waa habayntii bay kamid tahay habayntii dhulka ayay labadii maalmood ee habaynta dhulka ayaa dhulkana sidoo kale loo eekaysiiyay mid u eg marka ukun ama beed u eg oo kale ama kubad oo kale kuratul ardiya marka dhulka kubadda marka cilmigan walaalayaal aan idinka warramayo bani aadamku waxay ogaadeen 200-300 sanadood ka hor quraanku wuxuu ka warramayaa cilmigan 1400 sanadood ka hor 1400 years ago 14 boqolaad oo sanadood ka hor ayuu ka warramay quraanku subhanallah wa cilmiga ilaahi way subhan wa cilmiga ilaahi 4 maalmood baa markay isu geenay ku qaadatay abuurida dhulka iyo habayntii dhulka iyo sameyntiis ثم مركاسو استوى إلهي وحو استوودي إلى السماء حق سمد ولا استوود استوى واحد طلب مر بين كور ربي دونا استواها ولا ريال الاستواء معلوم استوه والغو قرن إلهي بقرآن كبو شيئين ولا استوودي أو حق سمد آدي حق سمد إنو ألا آدي إلهي بقرآن كبو شيئين معلوم والغو قرن والكيفية مجهول قابكو ألا حاجة سروا آدي او استوودين الله ما قرن يوا مجهول لما قرني ألا نمو شيء النبي صلى الله عليه وسلم سيدا أودي السؤال عنه بدعة إن هذه ويدي سيدو تلاهدين الله سيدا بو حاجة السماء أما حاجة السراء يا عرش جيس الدوشي سوقو استوودين دانيجي ويدي سيد وبدعو وبن أيات شيء لأنه إلهنا مو شيء كيفية نبينا مو شيء كيفية إلهي وامدو قارا أو عنتنتو إلهي وقالنتو ويقابكو الله ويستوده سبحانه وتعالى سبحان الله كاملها صفوينك وصفوينك إلهي بكمية سبحانه وتعالى تضبطن بمركا كسيبتي أو مركا وحوية حقي الله سبحانه وتعالى عنه هالشيء مركا واحد لنا ولا ليال سيد علماء دي إمام مالك بن ملانية إنه كلمات كم كان آخرين إنه داهي الاستواء معلوم والكيفية مجهول والسؤال عنه بدعة استوه هو لغو قرانو إلهي بقرآن كوشيغ كيفية يقابك ولو استوه سبحانه وتعالى ومجهول لما يقانو الله موشيغ سبحان الله باهي لو قبين لو قادنا ما بجرتبا هدي وقال اوغان لهين باهي لو قبنا وشيغ لها معلومات بدن بو كبخين لها marka الله سبحانه وتعالى وكامسي qaabkeebu istuwadayna inaad weydiisid waa bidco weeyaan oo waa waxaan diinta sal ku lahayn weey iyo qof fitna doona ahun baa dadka weydiiyo weey qof fitna doona ayun baa marka dadka weydiiyo subhanallah marka ilaahay xagga samad uu istuwada qaabku uu istuwada ilaahay baa yaqaan waa mid uu haboon oo ku haboon oo u qalanta ilaahay subhanahu wa ta'ala weey ayuu xagga samada ama xagga sare samada ayuu alla istuwada wahiya dukhanan xaal ay tahay samadu dukhan qiiq ay tahay قيقوي سمدي قيقوي ولا لي العلم جن وأقسم بالله رب العالمين إله وين من كل عرنية علم جن بني آدم كوحي كوجاد ملايين سنوات إن أي علم جن إنه عرق وقيق إن الجاران إن الأجادان إله لكن سب بلا شيء أو فضوض بوكوش جادية واحد تقول عليال دد سنسي هنا مع نمن يعني إن بدن علم جبرني oo de marka cilmigi bani aadamku iska soo dhaxliyay tajribada ahaa ayaa marka waxay ku ogaadeen markii ay baadheen in dhulkan iyo cirkan iyo koonka guud ahaan ama waxa universe loo yaqaan oo dhan koonka oo dhan in cimrigiisu yahay 14 bilyan oo sanadood marka waxay dhaheen dhulku iyo cirku wuxuu ku abuurmay qarax dhacay muddo laga joogay imika qiyaas ahaan 14 bilyan oo sanadood ka hor 14 bilyan oo sanadood ka hor qarax dhacay marka waxay dhaheen dhulka iyo cirku waxay iyo dhulka iyo cirka iyo kawaakibta meerayaasha xidigaha waxa cirka joogo dhan waxay isku ahaayeen nuqdo yar shay yar bay isku ahayd hal dhibic yar bay isku ahayd dabadeedna way qaraxday shaygaas qaraxay markii uu qaraxay ayaa subhanallah waxa abuurmay galaxies ama xidigururka waxa loo yaqaano xidigihii baa abuurmay kawaakibtii meerayaasha baa samaysantay waxa kada sidaas uu ku tadawuray oo markaa subhanallah
ودولك يعكي وكسما اسمي ساسي دهين علمدي astronomaga ahaa ama culumta falaga wax ka bartay cilmiga falaga wax ka bartay cosmologistiga kuwa loo yaqaan ala kulli hal cilmigaas goorma la ogaaday waxa la ogaaday muddo laga joogo 60 sanadood 70 sanadood ayaa la ogaaday in dhulka iyo cirku markuu Allah abuuray subhanahu wa ta'ala anna wax leena ilaahay baa abuuray gaalada laakiin atheist ka iyagu waxay dhaheen dabeecadda abuurtay dabeecadda iska qaraxday ayay dhaayna dhahan walaad billah iskama qarxin ilaahay cid baa ka dambeysay nidaamsan cid nidaamisay oo nidaam iyo tartiib iyo hab u sameysay baa markaa ka dambeysay ayaa cilmigan waxay ogaadeen 70 sano ka markaa waxay ku qaateen Nobel Prize bay ku qaateen ninkii ogaaday in Big Bang waxay ugu yeedhaan Big Bang theory waa qaraxi weynaa ee dhacay dhowr iyo tobanka bilyan ama 14 bilyan ee sanadood ka hor ayuu qaraxaasi dhacay kadibna xidigaha iyo cirka iyo dhulka iyo markaas ay abuurmeen subhanallah dhulka iyo cirka iyo waxa laaliyo koonkuna wuxuu ka abuurmay bayna dhaheen qiiq buu ka abuuray qiiqaasina waxa way xidigtu walaalayaal waa markan ayaan jeclaynaa ka warramay laakiin hadalku bay la gal xidigta iyo kawaakibta ama meerayaasha waxa loo yaqaano waa sida bani aadamkiisu inagu dhul ciid kama abuurnin markaynu dhimana xagee ku laabanaa ciid bay ku laabanaa Soomaa dhulkan aad arkaysid iyo marka waxa weeye kawaakibta iyo meerayaasha iyo xidigaha marka la isu geeyo ama guud ahaan galaxieska waxa loo yaqaan ama xidig ururka waxaan u bixiyay weeye laana xidigyo badan oo isu tagay marka xidig ururun baan kelmadaasan u bixiyay xidig ururka marka fara badan isu tagay ee galaxieska loo yaqaano ama majarooyinka afcarameeda lagu dhaho ayaa walaalayaal markay la abuurayo qiiq baa laga abuuraa markay dhintaanna qiiq bay isu bedelaan sida bani aadamka ciidda laga abuuray markuu dhinto uu ciid u noqdo hadhow tole markii la abuurayna laga abuuray ciid laga abuuray marka la soo saarayna ciidda laga soo saaray sidaas oo kala xidiguhuna marka ay la abuurayo qiiqaas laga abuura markay dhimanayaan qiiq bay dib ugu laabtaan subhanallah cilmigan goormay ogaadeen waxa ogaadeen dhowr iyo 10 sanadood ka hor dhowr iyo 10 sano 20 sano ka hor ayay bani aadamku ogaadeen laakiin cilmigan ilaahay subhanahu wa ta'ala faahfaahin fara badan buu quraanka kaga bixiyay wuxuu yiri wahiya dukhanun xalay tahay samadii qiiq bay ahay samadii dabcan dhulka dhan qiiq bay ahayn xilliga subhanallah ilaahayna quraanka uu ku tilmaamay in uu qarax dhacay oo marka la kala fujiyo dhulka iyo cirka oo wuxuu dhanna dhibic isku ahaayeen sida ay sheegeen nimankii saynisyahanada ilaahay baa ku sheegay quraanka subhanahu wa ta'ala suurada 12 quraanka aayada 30 buu alla wuxuu leeyahay awalam yara alladina kafaru kuwa gaaloobay miyayna arkayn goorma ma iminka mise beri hore mise mustaqbalka arki doonaan وفرسده كلمته على ذيك وفعل مضارع وفعل إمك تاجن present tense وفعل إمك تاجن فلدع يمك ويبك ورم أولم يرى الذين كفروا مينا أركين كون قالوا بي أن السماوات سموينكي وسموينكي الله أبوروي والأرض يدلكن كانتين يا هاي رتقا وحسكو يالله هالشيء ففتقناهما مركزان وكلافوتشيني Big Bang theory bay dhahniyay wala kala qarxiyay alla wuxuu yiri samada iyo dhulku wuxuu wax isku ay rataq oo isku yaala oo dhibic yara dabadna waan kala fujinay nolosha halkaas ka abuurantay nolosha halkaas ka bilaabantay kowkabkii 1400 sanadood baa la quraanka kaga warramay goormay ogaadeen culimada saynisyahanadu 60 sano madama cilmiga Big Bang goortay ogaadeen ilaahayna 1400 sanadood ayuu kaga warramay quraankiisa waa mucjisooyinka cilmiga iyo sayniska ah waa la quraanka kaga warramay sidoo kale waxa uu daliila meeshaan qiiq uu ka dhacay oo qarax ka dhacay ilaahay baa quraanka ku sheegay wahiya dukhanun qiiq way xaalay ahayd qiiq sida awadeed walaal qiiqu inuu yani qiimo weyn uu ku fadhiyo qiiqaasi suurad iska dhan quraanka kariimka wax loo yaqaan dukhan qiiq baa loo yaqaan subhanallah qiiqaas aan noqdo kuwa ka iimanaya mustaqbalka marka aakhiru zamanka qiiqa soo baxaya ha noqdo iyo qiiqa kale aan nidhi waxa weeye waa sida noolayaashaas marka kawaakibtii meerayaasha xidigaha laga abuuray sidoo kale markay dhintaana qiiq bay isu bedelaan waa kuwaas weeyaan muhiimada ay leedahay awgeed ayuu alla quraanka ugu sheegay marka qiiq bay ahayd samadii marka su'aal Allah hadlay samadii dhulkiiba waa la hadlay wuxuu ku yiri faqala laha wuxuu ku dhahay Allah samadii wuxuu ku yiri walil ardi ya dhulkii wuxuu ku dhahay itiya labadiina si kaalaya buu ku yiri dawcan xaalatiidin idinko yaa deecay kaalaya oo yajiba aw karhan haday diidaan qasabi ku kaalaya labadaba wad imanaysan
idinku ama yadeecay kaalaya ama qasab iyo xoog ba iyo awood Allah ku imanaysan subhanahu wa ta'ala qaalataa waxay dhaheen ila waa nool ilaahay baa abuuray samadii dhulka qaalataa samadii waxay tiriyo dhulkii waxay dhaheen atayna nimi waanu nimi ha rabbi waanu nimi taa'iciina xaalannahay anagoo adeecsan ayaanu nimi فقضاهن الله سبحانه وتعالى وحكى يلي 7 سماوات تضب سمو أيها الله مركا وقاميين وسمده وكيله تضب سمو في يومين لما معلومات بيكو قادتي في يومين لما معلومات أي سمادي أبو ردي سماده تضبين لقد ديقو لما معلومات أو كله أي قادتي وكمدا من أيام الله معلمها إلهي كمدا وأوحى في كل سماء أمرها وأوحى وحوال وحيد في كل سماء سما كستو تضبط السما كمدا هاي أمرها أرين كذي تضبط السما مر بين كورمي دونا تضبط الدول وحلوجة شديد تضبط السما وحلوجة شديد مر بين إن شاء الله تعالى برنامج كنا نكورمي دونا تسوى موضوع كلوي على كل حال مهمته أما يعني وجدده وحوي هل كان الله وحكوش جينو سما دي كو أبوريها يومين لما معلومات كلام مركا دول كي واحد قادة لما معلومات أبوري ديسه samadina waxay qaadatay 2 maalmood oo abuurida ah iyo 2 maalmood oo kala dhulka habayntiisii iyo markaas u diyaarintiisii noolku loogu diyaar garoobay inuu noole iyo shay nool ama yani wax nool uu ku noolaan karo ayay qaadatay isu geen waa maxay waa 6 maalmood 6 maalmood waa 2 dhulka lagu abuuray 2 habaynta dhulka ah iyo 2 samooyinka ah waa 6 maalmood 6 ayam waa bes marka ilaahay wuxuu dhahay 6 maalmood baan ku abuuray tanna waa fasiraadii meesha marka 4 ayam uu dhahay Allah subhanahu wa ta'ala afar maalmood waa isu geyn labadii maalmood ee dhulka lagu abuuray iyo labadii maalmood ee kale ee habaynta dhulka lagu abuuray ayaa markaas la isugu ka geeyay iyo labadan kale waa 6 maalmood laakiin iyagu markii ila xisaabta si fiican uma garanayaan waxay dhaheen 242 laba afar u geey waa 6 labana u sii geey 8 subhanallah saas ay xisaabtameen kaasay dhaheen 8 maalmood ayaa markaa dhulka lagu abuuray su'aashan walaalayaal waxa la weydiiyay Sheikh Ahmed Didat rahimahullah rahmatan wasi'a oo wax fara badan aan ka faa'iidinay wili baa weydiiyay wuxuu ku yiri quraankiina wuxuu leeyahay 8 maalmood baa dhulka lagu abuuray wiilkii buu markaa Sheikh Ahmed Didat u yeeray wuxuu ku dhahay kaalay wuxuu u dhiibay 2 shilin 2 ma taqaana yani $2 oo kale soo qaad $2 buu dhiibay oo isku yaal lacag yani 2 warqadood $2 ay ku qoran tahay oo isku taalo kale tusaalahan ayuu dhiibay qaabso waa hal xaashad Soomaaliyeed waa 2 buu yiri way 2 kale ayuu dhiibay wuxuu waa 4 waaye uu qabtay wiilkii 2 kale ayuu dhiibay imise isku noqotay 2 mar buu dhiibay 2 kale mar buu dhiibay wuxuu ku dhahay waa 4 2 kalena mar buu dhiibay waa 6 soo 6 maaha sidaas Sheikh Ahmed Didat wuxuu dhahay 8 baan ku dhiibay 8deedii soo celi ma fahanteen markaa walaalayaal inaad fahanteen baan u malaynay laana wuxuu u dhiibay markii hore 2 kasadana 2 kale u dhiibay labadii kale markuu u dhiibay ayuu isugu geeyay labadii uu hore ugu dhiibay iyo labadan markaas ku dhiyay 4 kaasoo 2 kale u dhiibay kaasoo yiri 8 baan ku dhiibay subhanallah 6 buu u dhiibay markii yani labadii hore iyo labadan dambe la isugu geeyay ayaa 4 noqotay deetana marka 4 lagu dhawaaqay dadkii waxay u haystaan maxay 242 in 8 ay tahay 4 loo geeyay 6 loo sii geeyay 2 waxa weeye 8 saas ay u haystaan laakiin ma aha xisaabta dhabta waxa weeye waa 2 loo sii geeyay 2 loo sii geeyay 2 6 maalmood saas Allah subhanahu wa ta'ala uu ku abuuray dhulka marka sheekadaas marka nimankaasi akhriyaan mustashriqiintu la jawaabtoodii oo waadixana waa sida intaasna barnaamijkeena insha Allah ta'ala walaalayaal aynu ku soo gabagabaynaa intaynu ku kulmi doono barnaamijkeena kan xigana waxaan idinkaga tagayaa wallahu a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا